horta aan fiirino barnaamijka la yiraahdo Clubhouse oo bari ugu dambeeyay aad dunida looga isticmaalay gaar ahaan wadamada caalamka islaami gaar ahaanna bari ugu dambeeyay laga hadlayay baraha bulshada ee Soomaaliyeed ayaa waxa khabarada dhinaca oo xeel dheer ama xeelarayaasha dhinaca internetka waxay ka digeen badqabkiisa ayagoo sheegay in Clubhouse-ku uu yahay meel la iska dhageysan karo iyo meel sidoo kale macluumaadka qofka la bixi karo sidoo kalena uu leeyahay barnaamijka dadka iska leh qayb wada shaqeyna oo ay dawladaha dhan ugu fududeeyaan in xogta qofka la raadinayo ama qofka la aaminsan yahay inuu dawladda mucaarad ku yahay saalahan haduu dawladda mucaarad ku yahay ama si cid raadinayso si fudud loo helo qaar kamid ah khabarada gaar ahaan hay'adda Amnesty International madaxda guud ee arrimaha bariga dhexe ayaa waxa uu sheegay in ay dadku u baahan yihiin in laba jeer ka fikiraan marka isticmaalayaan Clubhouse wuxuuna sheegay in dalalka ay ku soo badanayso isticmaalkiisa uu kamid yahay dalalka Masar, Cumaan, Turkiga iyo Saudi Arabia sidoo kale wuxuu sheegay in barnaamijka kaliya lagu isticmaali karo ayaa la telefoonka iPhone iyo in sidoo kale uu yahay mid bilowday sanadkii 2020 bishii Abriil haddana wuxuu gaaray 10 milyan oo qof oo raaciya oo ku soo biiray dadayooga dalalka Cumaan, Turkiga, Saudi Arabia iyo Masar ku nool ayaa la arkayay iyagoo isku xiran sidoo kale Soomaaliya ayaa la sheegay in maalmihii ugu dambeeyay oo dhan ay arintaas jirtay Joy Westby ayaa waxa uu yiri waxaan u maleynayaa in dad ku nool goobaha ay ka jirto cadaadiska xooggan ee dadka la baacsado inay iska hubiyaan iyo sidoo kale meelaha ammaanku u dayacan yahay waayo xogtaada qof walba ayaa arki kara ayuu sheegay waxa uu ka digay in barnaamijkan uusan ahayn mid nabad qable marka loo eego isticmaalkiisa hagaag taasina qiimaha leh dalka Myanmar ama Burma hadda saa u taqaani dhiig ayaa qulqulaya haatanna shacabkii markii cagta la mariyay inkastoo weli ay dagaalamayaan gaar ahaan magaalada Yangon haddana waxaa haatan loo soo dhigtay in saraakiishii haweenadii qabrneed ee Aung San Suu Kyi ee xisbiga National League for Democracy ayada loo soo dhigtay qofkii labaad ee sarkaal sare ah ee xisbiga NLD ayaa nafta laga gooyay kadib markii uu ka qayb galay mudaharaadka Sow Miadlin ayaa ku dhintay gacanta booliiska magaalada Yangon kadib markii la tumay ayaa la yiri maalintii Isniinta ahayd sidii loo garaacay xilliga dalkaasi markay ahayd 1:00 iyo barkii habeenimo isqbarkii dambe ee xalay waxaa la sheegay in sidoo kale dilkaasi uu ku soo aaday iyadoo dhawaan xubin kale la dilay haatan waxaa la sheegay in qoysku ay dul warwareegayaan meydkiisa inay booliisku kaliya ay siiyaan ama militarigu balse waxaa la sheegay in cusbitaal military loo qaaday meydkiisa waxa ay warar ku sheegayaan in uu sidoo kale 2 casho ka hor la dilay Khin Monlat oo isaguna kamid ahaa ururka NLD sida ay sheegayaan mas'uuliyiintu dilka loo geysanayo xubnahaas ayaa la sheegay in ay keenayso inay ka qayb qaataan mudaharaadada dabadeedna mudaharaadada dhexdeeda lagu dilo marka la soo qabto gabadhii reer boqor u dhaxday dabadeedna boqortooyadii aqalka gashay aqalka boqortooyada ee dabcan loo yaqaan Buckingham Palace kana soo baxday iskeed ayaa ugu dambeyntii wareysigeedii wuxuu ku noqday dhulgariir boqortooyada dalka la yiraahdo Britain kadib markii ay sheegtay in cunsuriyad aad u badan lagu kacay sidoo kalena la faquuqay waxay sheegtay in ay cabsi aad u weyn iyo warwar xoogan u soo food saaray taasoo ka dhalatay kadib markii su'aalo aad u xun la weydiiyay barnaamijka Oprah ay ka qaaday dhulgariirka noqday ayaa waxa ay Oprah Winfrey gabadha la yiraahdo ayadana caanka dalka Mareykanka madowga ayaa wareysatay taasoo macna kale ayaduna sameysay in gabadh madowga ay wareysato gabadh kale madowga oo ka cabanaysa arrimahaasi waxay tiri arintii igu yaabka badneed isla markaana igu keentay xanaaq aad weyn wuxuu ahaa wada sheekaysi habeen dhaxmaray qaar kamid ah qoyska kuwaas oo ku saabsanaa su'aal timid oo ku saabsaneed ama xubin kamid ah qoyska waa qoyska boqortooyada uu weydiiyay cunuga dhali doontaan cunugooda Archie la yiraahdo sidee ayuu u ekaa doonaa maqaarkiisu ama intee in leeg ayuu maqaarkiisu madoobaa doonaa cunugana soo weydid baa lagu yiri iyadoo markaasi lagu durayo inay asal leedahay madow kadibna waxay sheegtay in arintaasi codad iyo cadhe aad weyn ka qaaday markii dambe ayaa hadalka waxaa kala cadeeyay iyadoo oo ay Oprah isku daysay inay ogaato ruuxa arintaasi sheegay Amir Harry oo sheegay in labada qof ee reerka ugu waaweyn boqortooyada midkoodna uusan kelmadaasi oran boqorada Queen Elizabeth iyo markaasi Ameerika Edinburgh midna uusan hadalkaasi Charles midna uusan oran labada ruux ee waaweyn raqada
midkoodna ma uusan oran waayeelka dabcan midna ma oran ayay tiri waana dadka mas'uuliyiinta meesha ugu weyn laakiin dabcan waa xubno kale war qoraal hadaba oo ka soo baxay aqalka Buckingham Palace boqortooyada looga taliyo ayaa lagu sheegay in la anfariiray hadal kasta markaana waxa loo qaatay si daran oo dhab ah waxaana sameyn doonaa baaritaan degdeg ah ayaa lagu yiri isla markaana waxaanu eegi doonaa arinta waxaanu ka naxnay kadib markii aan wada daawanay muuqaalka oo xalay laga wada daawaday dunida oo dhan gaar ahaan dalka Britain ugu dambeyntii laga daawaday waxaana rabnaa ayaa la yiri in aan ogaano sheekooyinka iyo loolanka ay wajahayeen sanadihii ugu dambeeyay Harry iyo Meghan ayaa lagu yiri qoraalka arintan sidoo kale waxay noqon doontaa mid markaasi la isla soo qaado wala isla soo qaaday baa arinta ku saabsan dhinaca cunsurka iyo waxa la yiri midabka ee arintu ka dhalatay waxay sheegeen in ay wali xubnahan ay yihiin xubno laga jecel waxa la yiri Harry Meghan iyo Archie oo cunuga yara saddexdaba waxa weeye xubno qoyska kamida oo wali qoyska dhexdiisa laga jecel yahay waxaana sheegeen inay wali arinta eegi doonaan laakiin waxay cadeeyeen in ay arinta ku xalin doonaan si hoose oo faragel jiray hoos baa loo dhaqay noqon doonta arinta warku uusan taraari doonin taliya inta ay wax walba soo shacbaxayaan yaa lagu yiri haga dawadaashan qiimaha badan dunida wararka oo calaamad dhinaca dulanseedka keenista xogaha waaweyn gaanka gaan caalamka dhan mar walba aad ka maqashaan qodobka ugu dambeeya aan kaga tagi doono qaybtan daawadashana qiimaha leh waa Kampala wararka ka imaanaya Bobi Wine ninka heesaaga ah la tartamay madaxweynaha dhowr iyo 30 sanadood talada dalka Uganda hayay Yoweri Kikwete Museveni ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu Mareykanka doonayo inuu ka dhigo arinta colka warf mudugudi wuxuuna ku baaqay banaanbaxyo aad u socda muddo badan oo lagu dalbanayo in laga hortago cadaadiska ayuuli iyo cunaqabataynta iyo wuxuu yiri sanadaha faraha badan ee 35 sanadood ka badan ee uu haystay talada dalkaasi waxaan idinku wacayaa inaad kacdaan oo aad u kacdaan ayuuli banaanbax nabadeed oo ay qoriyeen ayuuli mar rabno ayuu banaanbax aad qoriyaysataan hal qof oo qori soo qaadan kara jiri laakiin waa banaanbax aan uga soo horjeedno taliska in dhibaateeyay in dureeyay ayuu heesaaga oo magaciisa caadiga magaciisa saxda uu yahay Robert Kyagulanyi wuxuu ka sheegay magaalada si Kampala isagoo sidoo kale la hadlayay qaar ka mid ah xubnihiisa ururka National Unity Platform ayuu sheegay 39 jirkani in uu doonayo in dadka oo dhan isku soo baxaan doorashadii dalkaasi ka dhacday ayaa la sheegay in 54% uu ku guuleystay madaxweyne Kikwete taasoo January 14 dhacday wuxuuna ku tilmaamay doorashadaasi madaxweyne Museveni inay ahayd tii ugu balaadneed ee ugu cadaalad ee ka marneed bulxatooyo ee abi dhacda isaguna waxaa la sheegay inuu helay 30 mucaaradka weynika ah ee dhalinyarada inuu helay 35% balse waxaa arinta hareysay shakiga ugu weyn kadib markuu dhashay waxay ahayd marka internetka oo la gooyay sidoo kalena wada kasta ciidan la dhoobay hagaag dawadayaal qaybta saddexaad qeybteen